nabad daawadayaal ku soo dhawaada wararka ciyaaraha. ciyaaryahanka reer Jarmalka asalkiisu yahay Turki ayaa waxa uu takoor kala kulmay xulka qaranka Jarmalka kadib markii uu la kulmay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. ciyaaryahankan ayaa bishii May la kulmay madaxweynaha Turkiga Erdogan. kulankaasi ayaa waxa uu ciyaaryahankani geliyay wado cidhiidhi ah, waxaana xaalku sii darnaaday markii xulka qaranka Jarmalka uu xilli hore ka baxay tartankii koobka adduunka ee ku soo dhamaaday dalka Russia. Ozil ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray inuu la kulmay takoor, waxaana uu sheegay in guuldaradii koobka adduunka ee qaranka Jarmalka dhabarka loo saaray, isagoo sheegay in la dareesiyay inuu asalkiisu ahaa Turki. Ozil ayaa hadalkiisa sii raaciyay sanadii 2014 markii aan ka qayb ahaa guushii uu Jarmalku ku hantay koobka. waxaa la dareensiyay inaan ahay Jarmal dhalad ah, laakiin xaalku waxa uu isbedelay markay guuldaradu timid. qoraalkiisana waxa uu ku soo gabagabeeyay inuu ka fadhiistay xulka qaranka Jarmalka. Mesut Ozil ayaa sanadii 2014 ee qaranka Jarmalku ku guuleystay koobka adduunka waxa uu dhaliyay goolal muhiim ah, isagoo ka shaqeeyay goolal kale oo iyaguna qaranka u lahaa muhiimad gaar ah. Ozil ayaa sanadkaasi dhaliyay gool qaranka Jarmalka u ahaa gool muhiim ah, kaasi oo ahaa kii uu Ozil ka dhaliyay qaranka Algeria. ciyaartaasi ayaa la isla gaadhay waqti dheeri ah, iyadoo gabagabadii ciyaarta uu Jarmalku ku badiyay 2-gool. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ka hadlay arrinkaasi, waxaana uu sheegay in Ozil la cunsuriyadeeyay sabab la xiriira diintiisa, waxaana hadalkiisii ka mid ahaa madaxweynaha: xalay ayaan la hadlay Mesut Ozil, doodiisuna waxay ahayd mid maangal ah, mana ahayn mid ka hor imanaysa shaqadiisa. laakiin waxa aan loo dul qaadan karin ayaa waxa ay tahay wiil yar oo awood u horay qaranka Jarmalka, oo weliba qayb ka ahaa guulo badan oo ay gaadheen, in lagu colaadiyo sababa la xiriira diintiisa. sidee loogu sharaxi karaa kuwaasi inaanay ahayn wax la isku ceebsado in ay isla kay sawiri karaan ciyaaryahano asalkoodu yahay Turki? waan soo dhaweynayaa in siyaasiyiinta Jarmalka ay garab istaagaan Mesut Ozil. sidoo kale daawadayaal waxaa ka mid ah wararka ciyaaraha ee ugu dambeeyay dhanka kubadda cagta. ciyaaryahanka reer Portuguese ee dhawaan u wareegay naadiga Juventus Cristiano Ronaldo ayaa dhameystiray tallaabadii u dambeysay ee wareegista naadiga Juventus. Ronaldo ayaa maray baaritaankiisii caafimaadka, waxaaba shaybaadhkaasi ka soo baxay arrimo mucjiso ah. Ronaldo oo 33 jir ah ayaa la sheegay in jidhkiisu ka yar yahay da'diisa ku dhawaad 13 sano, sababta oo ah alaamitada badan ee uu sameeyo Ronaldo. duxda ku jirta jidhkiisa ayaa aad u yar oo gaadhaysa wax ka yar 7%, taasi oo 3% ka hooseysa sida caadiga ciyaaryahankan dadiisa. naadiga Juventus ayaa Ronaldo ku iibsatay 100 milyan iyadoo la saxeexatay heshiis gaadhaya 4 sano. ciyaaryahankan dadan ah ayaa weli lagu iibsan lacag intaasi leeg, lana siin mushahar qiimaha si gaadhaya. suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ayaa maraya meel xasaasi ah kadib markii uu koobka adduunku dhammaaday. naadiyada ayaa soo iibsanaya ciyaaryahano ay u bogeen kubaddooda si ay u bixiyaan kaalin ka banaanayd. naadiga Barcelona ayaa soo iibsatay ciyaaryahanka reer Brazil ee Malcom ee u ciyaara naadiga Porto ee ka dhisan dalka Faransiiska. Barcelona ayaa si rasmi ah heshiis ula gaadhay ciyaaryahankan 22 jirka ah. sidoo kale ciyaaryahankani waxa uu doonayay naadiga reer England ee Everton, iyadoo maalmihii u dambeysay ay soo baxayeen in ciyaaryahankani uu wada hadal kula jiro naadigan. haddana naadiga Barcelona ayaa kaba dambeystii ku guuleystay inay hantaan ciyaaryahankaasi. laacibka reer Faransiis ee Ousmane Dembélé ayaa sheegay in naadiga Barcelona iskaga tegayo kadib markii uu naadiga ku soo biiray ciyaaryahanka Malcom. Ousmane ayaa cadeeyay inaanu doonayn inuu fadhiisto kursiga beddelka kadib markii tababaraha naadiga Barcelona uu sheegay inaanu u hayn boos rasmi ah. geesta kale ciyaaryahankii hore naadiga Arsenal Thierry Henry ayaa shaaciyay inuu aqbalay inuu tababaro u noqdo naadiga reer Ingiriis ee Aston Villa. Henry ayaa markii uu ciyaaraha ka fadhiistay waxa uu noqday faaqidaad ciyaareed. Henry ayaa sidoo kale tababare ku-xigeen ka noqday qaranka Belgium. tababaraha naadiga Manchester City Pep Guardiola ayaa taageerayaasha naadiga u sheegay inay ku guuldareysteen inay heshiis la gaadhaan ciyaaryahanka reer Bosnia una dheeleen naadiga Juventus ee Miralem Pjanic. dhanka kale laacibka khadka dhexe naadiga Bayern Munich Boateng ayaa isna wada hadal kula jira naadiga reer Faransiis ee PSG. Guuled Maxamed Aadan.